hibo waxay ka mid ahayd ardayad dhigata iskuulka iftiin shalayna waxay ka qalin jebisay dugsiga sare runtii ayadoo u dabaaldegayso farxadda maxaan ku yiraahdaa ii sheeg ay ku jirtay ayaa waxaa dhacday gelinkii dambe ayadoo maxaan ku yiraahdaa magaalada soo aaday dhibaatadaas la kulantay xaqiiqdii arrintaas waxay ahayd arrin aad u cajiib badan hibana waxay ahayd gabar aad u wanaagsan sida noola sheegay ama ehelkaba ay noo sheegeen shalay laftirkeeda markii ay dhimanaysay waxaa noola sheegay inay saa'imad ahayd ay sooneed beryahan dhanna ay sooneed gabar waxbarashada runtii oo aad ugu wanaagsan oo macallimiinteeda sida ay sheegeen oo boqolkiiba boqol ku dadaasha ayay ahayd laakiin rabbi subxaanahu watacaala waqtigeeda intaas ayuu ku ekaa qadartana way dhacdaa laakiin falilaahi alxamdu ilaah baa ku mahadsan maxaan ku yiraahdaa ii sheeg ninkii falkaas geystay oo runtii oo maxaan ku yiraahdaa ii sheeg shalay baxsaday ayaa waxaan ku guda jirnay xalay oo dhan sababtoo ah maxaan ku yiraahdaa caqabadan waxay noqotay arrin aad u cajiib badan waxaa runtii qadka telefoonka ku jira inta badan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale waxaa nafaray barasabkeena gobolka Shabeellaha Hoose mudane Ibrahim Aadan Cali Najax laamaha amniga sidaas oo kale jarnada inta badan way soo hadlayeen waxay ahayd arrin dadka deegaanka ama Soomaaliya oo dhan caqabad ku noqotay inan 18 jira oo waxbarashada runtii aad ugu dadaalaysay agoon ahayd haddana nin tuuga oo wax micnaa oo maxaan ku yiraahdaa nafta bini'aadamkaba ogeyn waxa ay ku saabsan tahay ayaa runtii dilay gabadhaas laakiin waqtigeedan halkaas waa ku dhamaaday maadaama maamulkii gobolka Shabeellada Hoose maxaan ku yiraahdaa ii sheeg madaxweynihii saraakiishii sarsare intaba qadka ay ku jireen heer federaal iyo heer dowlad goboleed xalay oo dhan waxaan u taagnin shalay galabtii gelinkii dambe oo falkan dhacay xalay oo dhan waxaan u taagnin falkan sidii micnaha mataqaanaa lagu qaban lahaa ninkaas oo maxaan ku yiraahdaa dhibkaas geystay waxaa runtii aad ugu ammaanayaa taliyaha saldhigga deegaanka Lafoole oo runtii kaalin adag ka qaatay iyo gudoomiye ku-xigeenadeeda oo xalay oo dhan u soo jeedeen sidii lagu qaban lahaa ninkan dhibaatada ba'an gabadhan miskiinta oo agoomada ahayd u geystay oo shalay eedoo farxad ku jirto murug ugu bedelay xalay maamulka gobolka hadduu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka hadduu yahay gudoomiyaha deegaanka iyo ku-xigeenadiisa hadday yihiin taliyaha saldhigga iyo tali ku-xigeenka weliba waxaa u malaynaya runtii inaba caadi maahayn tali ku-xigeenku iyo taliyaha sida ay u shaqeeyeen ilaa laga soo qabto xaalka inaba caadi maahayn sababtoo ah warbaahinta oo dhan ay qabsatay maxaan ku yiraahdaa falkaas wuxuu ahaa fal laga argagaxo gabar qaangaartay oo 18 sano jir ah reerkeedu maxaan ku yiraahdaa maanta xilligii ay wax u qaban lahayd ah waxbarashada heerkii maxaan ku yiraahdaa jaamacaddii hadda aadi lahayd farxad ku jirtay ayay micnaha mataqaanaa murug ugu bedeleen waxaan halkan tacsi tiiraan leh ugu diraynaa familka reer Qaasim Maxamed iyo hooyo Faa'iizo runtii waxaan leenahay aadaan ugu xunnahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi ma 'ada wa lahu ma akhadh wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma